meelka dhaca ahaa ee uu jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ceelkaas ku shiirartay Isbuucan. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka muslimiinta ah ayaa ka mid ah malaayiin qof oo ka falceliyay arrintaas. Madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Siisi ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan mowduucan, isagoona sheegay in hadal lagu weeraro Nabi Maxamed uusan wax qiila lahayn. Waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay dowladaha Carabtu inay arrintaasi ka falceliyaan. Carada lagu hadalkan meelka dhaca ahaa ayaa uu jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ceelkaas ku shiirartay Isbuucan. Hogaamiyaasha dalalka muslimiinta ah ayaa malaayiin qof ka falceliyay. Madaxweynaha dalka Turkiga iyo weliba qaar ka mid ah madaxweynayaasha caalamka ayaa sheegay in arrintan si aad ah uga xun yihiin. Waxaana sidoo kale Cabdilfataax Siisi uu sheegay marba haddii ay tahay arrintu mid ku saabsan in laga falceliyo, waxaanu qaadaynaa buuri tallaabo kasta oo looga hortagayo arrinka ku saabsan inuu mar labaad uu ku dhaqaaqo madaxweynaha dalka Faransiiska. Waxaana Cabdilfataax Siisi uu sheegay xorriyatul qowlka inaanay shaqaynin marba haddii aflagaado loo geysto Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Waxaana ku baaqay dad badan oo muslimiin ah inay arrintan ka feejignaadaan. Islamarkaana sidoo kale waxa uu baaq u jeediyey madaxweynaha dalka Faransiiska. Markoon uu sheegay in hadalladan uu ku dhawaaqay mar walba ay noqon doonaan kuwo caraynta badan gelisa dadka muslimiinta ah inta haatan dibadbaxaysa kuwo ka badan oo haatan dibadbaxay dhihi karaan. Waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay dowladda dalka Faransiiska inay ka fiirsato hadallada ay ku dhawaaqayso. Waxaana baaq u jeeday dhammaan dunida dacallada ee dadka ku dhaqan. Waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dalka Faransiiska waxyaabaha laga keeno isla markaa meesha laga saaro. Waxaana sidoo kale uu sheegay wadamada Islaamku iyagu inay qaataan tallaabo kasta wax laga qabanayo xaaladdan uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dalka Faransiiska Macron. Malaayiin qof oo ku kala dhaqan wadamada Islaamka ayaa isugu soo baxay waaweyn waxay ku muujiyeen siday u taageersan isla markaana ay uga soo horjeedaan hadalkii dhowaantan uu jeeday Macron, isla markaana ay u taageersan yihiin, isla markaana ay taageero xad dhaaf ah u muujiyeen iyo weliba jacaylka ay u qabaan Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Wadamada qaarkood ee Carabta sida Qatar, Baxrayn iyo Cumaan iyo wadamo kale oo Carabeed ayaa waxay ku dhaqaaqeen tallaabo ah inay waxyaabaha laga soo dhoofiyo dalka Faransiiska wadamada la keeno ay soo aruuriyeen, isla markaana ku yaaleen subarmarkeetyo wadamadaas Carabta dibadda looga soo saaray. Waxaana la sheegay in mar dambe laga keeni doono alaabo ay leeyihiin dalka Faransiiska wadamadooda. Taa ay inta badan dhibaato ku noqon karta dowladda dalka Faransiiska sidii horeba ugu dhacday dowladda dalka Denmark oo wadamada Carabta iyo dowladaha muslimiinta ay hore u qaadaceen in waxyaabaha laga keeno wadankaasi Denmark wadamadooda la keeno. Tanna waxay dhaqaale xumo ku keeni doontaa haddii ay suurtagal inay sii socoto.